السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ويا مرحبا بكم. أديات بني سلامي أخيار تقاليق قيمها هي قدرين تبضن ملك صدى فيها دنيا أتك جوكتين وقت يدا أكل دون أتكو كلا سجنتين برتن أن قدي هنا سد وبرتي ألا بأن تكوي من جدنا على رقم هذا نقول عصب تهاي سبسكرايب لايك إيه كومنت يقول مركز وين اللي رجالين هذا نلا جوكتين واد ما صنت هاي أنت عمرك لقي مع دو ما أنت وحن كوسي ده وحن كوهيا وحن كوهيا laba qodbadood oo isku macno ah laba qodbadood oo macno kala hata wala taabanaya labada qodbadood waxa ay yihiin madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ile iyo madaxweynaha hadda Mustafa Maxamed Cumar oo hadda madaxweynaha deegaanka Soomaalida ah labada madaxweyne waxa is qabteen laba khudbadood Cabdi Ile waqtigii xukuumaddiisa ay sii gabagabaysay ay sii baabaysay inta isaga xabsiga loo taxaabin waxa uu sameeyay ahayd ama xukuumaddiisa oo isagu hogaaminay waxay qabteen dibadbax balaaran oo lagu taageerayo dawladda waqtiga taliska haysay TPLF-ta waqtiga ama Tigreega oo waqtigaasi Itoobiya madax ka ahaa oo talinay banaanbax balaaran ayay u sameeyeen oo ku taageerayeen hadda bal u fiirso banaanbaxda wax badan ayuu khudbadiisa madaxweynaha xilliga uu ku sheegay adiga ayaa dhageysan doona fahmi doonana maanta na waxa dhacday dibadbax balaaran oo ay dawladdu ama xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay qabteen oo madaxweynaha Mustafa Cagjar oo madax ka ahaa ama uu gudoominayay waxa la isugu soo baxay labada dibadbaxba hal meel baa la isugu soo baxay labada dibadbax waxa laga hadlayay hal ujeedo maanta waxay ka hadlayeen in dawladda hadda jirta la taageerayo oo lagu taageerayo shaqadan iyo hawshan ay ummadda u hayso abal u fiirso oo ayna ka soo horjeedaan wax kasti oo dawladda liddi ku ah carqaladaynaya shaqadeeda ka hor imanaya waxay kale sheegeen in ay taageersan yihiin dawladda wixii ka hor yimaadana ay la dagaalamayaan هذا بلو فيرسو وحيد كهوري مادنا أي لا دجالميان شالي هذا ومانتا يشالي عبدي إليه إسنا وحو شيء دولة دوحي كهوري مادا دولة نمدا ليد كوه إن ديجي عن هورينو الله دجالمين أوكي أنا وحاجة صباحي هرت الله بدأ قطبات وإسكو هالقطبات معنوهنا واسكو هل وجددنا واسكو هل كلو سعودنا واسكو هل كاسي محوية أنا كأركتيد أهان يوحنا كلا صوب بحي هل كا أنا وحنا أركي إن أي تاي كشبو ها إنه دي إن كسور جيسن شالي دولة دان تاجرني TPLF وقت قتلني سال تاجري TPLF markay dhacday umada waa la xasuuqay oo gobolka Tigreega ee maxaa magaalada Makalisa loo galay si ka duwan baa loo galay Kenya jigjiga sidaaba laga dhigay oo waa la baabiyay laakiin ayaa u hadlayo yaa sheegay in xasuuq ma jirto TPLF-ta dadka isku diinta ahaayeen baa u qayliyay Mareykan baa u qayliyay Faransiis baa u qayliyay reer Yurub oo dhan baa u qayliyay dadka isku diinta ahaayeen oo dhan baa u qayliyay laakiin innaka cid inoo hadlaysa male muslim inoo hadlay oo ilaahay uu siiyay karti uu ku hadla ma jirto taa waxa la inagu xasuuqay waa taageeradii TPLF la taageeray dawladda maanta hadda joogtana iyadna sidoo kale waxay taageersan tahay abiye iyo inta hadda joogta abiye iyo kuwan meesha haday ka baxaana waa tabtii shalay nagu dhacdoon baa nagu dhicay
tii shalay ummadda ku dhacday ee ummadda loo geystay ee gabdhaheena lagu kobsaday ee magaalooyinka lagu xasuuqay lagu dhacay maxaa la yiraahdaa dhaqaalihii ummadda in xoolihii ummadda lagu dhacay taa unba inoo dambaysa habaarka iyo nasiibada ummadda halka ka dhacda ma garanayo kii yimaadaba haddii ay ku shuba tahay sheekadu inaka ayaa noo kala saari doona halkaa ayaan ku joojinayba bal labada fiideo dibadbaxyada iyo waxaan labada khudbadood baan kuu soo koobay labada khudbadood bal dhageyso oo dhuur aan ogsoonahay shalay dhibaatadii uu lahaa dhergigu iyo dhibkii uu lahaa nimankii dhergiga ahaa ee ogeydeen ayaa dib isku soo abaabulay oo raba inay waxa weeyaan xukunkii ay dawladda federaalka carqaladeeyaan oo mar labaad ay Itoobiya dib ugu soo noqdaan iyaga oo sheeganaya ururo kale iyaga oo siyaabo kale u socda marka waxaan leenahay haddaan nahay shacabka deegaanka Soomaalida iyo xukuumaddiisa mudaharaadada laga sameeyay Gondar iyo Baxardar iyo meelo kamida Oromia waxaan leenahay waa sharci darro waxay u mudaharaadayaan waa dembi waana waxa weeye sidii mar labaad dhergigu soo noqon lahaa marka anagoo Soomaalida oo shacabka Soomaalida iyo xukuumaddiisa waxaan u cadeynaynaa in mar dambe deegaanka Soomaalida xukun dhergi la yidhaaho ama wax u egtoona inuuna soo noqon karin madaxweynaha dowladgaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo tilmaamay wadiiqada kaliya ee Itoobiya ku sii jiri karto inay tahay federalismka iyo dastuurka gaar ahaan haddii qodobka 39 la taabto in dowladgaanka Soomaalida Itoobiya uu ku xiga dagaal federaaliya oo dawladda hadda jirta ay diidan tahay laakiin 7 sano wixii ay fuli weyday dib u dawlad u fulin doonto kooxdaasi waxay marka hore isu gamaasuurisay maadaama ay u arkaysay inay qabatay shaqo muhiim ah oo ah iska horkeenida qoomiyadaha waxay isku dartay Soomaalida iyo Oromada waxay isku dartay Axmaarada iyo Oromada waxay isku dartay Benishanguul iyo Axmaarada marka maadaama ay u arkaysay inay dadka iska wada horkeentay waxay aaminsanayd isbeddelkii dhacay ma soconayo oo cid la socon doonta ma jirayso 2 sano ayay ku jirtay hawsha markii aragtay iyadoo nidaamyadii iyo xisbiyadii dib loo habeeyay iyadoo doorashooyin la isu diyaariyay iyadoo dalkii uu ka maarmay waxay qaadatay go'aan ah in dagaal ay qaado mooyee wax dambe oo u harsayo rajo ay leedahay oo ay saameyn siyaasadeed ku yeelanaysaa inay jiraynin sidaa daraaddeed waxa ay bilowday dagaal toosa oo ay ku bilowday ciidamadii qaranka ee deganaa waqooyiga Itoobiya maantana waa la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii hadda ay ka wadaan dagaalkii gobolada Anfarta iyo gobolka Axmaarada haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaarayaan deegaanka Soomaalida iyo deegaamada kaleba oo ay isku dayi doonaan inay dib u soo celiyaan nidaamkii ku salaysnaa kala sarreynta kufsiga dilka barakicinta iyo wax walba oo xun oo bini'aadam lagu sameeyo marka waxaan si buuxda uga soo horjeednaa kooxda argagixisada waxaan diidanahay inay soo laabato oo ay khalkhal geliso nidaamka iyo amniga dalka waxaan garab taaganahay ciidamada qaranka iyo dawladda federaalka iyo deegaamada dalku ka tirsan yahay ee isbahaysanaya si looga hortago kooxdaas argagixisada iyo kalkaaliyaasheeda shisheeyaha ee dana siyaasadeed ka raadinaya in dalkan uu noqdo mid maaragtay burbursan si khayraadkiisa loo boobo marka haddaan shacab Soomaaliyeed nahay waxaan si adag uga hortagaynaa arrimahaas waa la socotaan furumaha hore ee dagaalku ka socdo in maaragtay wiilashani ay joogaan waxaan shacabku marka lagu baaqaynaa inay si buuxda u muujiyaan shucuurtooda ku aadan in kooxdaas oo wixii aragtidaada ah balniyo hoosta ku soo qor hoosta bal ku soo xariiqo subscribe-ka iyo like iyo comment-gana ha hilmaamin ku dhufo oo sii share gareeyo ma garateen marka insha Allah intaan isku iman doono videogan xiga waxaan inaga tagaynaa amaana Allah iyo kulan dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.